runtii waxaa noo farxada inaanu maanta hor nimaadno golahii shacabka golaha wakiilada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland haddii wax yar aan ka taabto runtii xilka aan hayo iyo hay'addan mas'uulka ka ahay guud ahaan sidii la sheegay anigu waxaan ahay Cabdulaahi Daahir 20 sano u dambeeyayba dalkan joogay 9 sano hore waxaan ka mid ahaa shirkadaha gaarka loo leeyahay oo muddadan door weyn ka soo qaatay sidii loo aasaasi lahaa bangiyada gaarka loo leeyahay 12 sano u dambeeyayna public sector-ka amba xukuumaddan ka mid ah 2010 baan ku soo biiray gudoomiyaha iyo ku-xigeenka labaadba iyagoo wasiirra baan soo wada shaqaynay gudoomiyaha hay'adda tiknoolajiyadda qaranka ayaan ahaa muddada wixii aanu qabanay runtii aan anigu leergareynayay national ID-ga ka mid ah project technology oo dalkan ay qabto kii ugu horeeyay laguna mahdiyay waxa ku xigay 2016 codbixiyayaasha diiwaangelinta codbixiyayaasha oo guddiga technical-ka aan ka mid ahaa markii dambana agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta oo runtii 3 sano aynu joognay aan horumar aad iyo aad u weyn gaarsiinay oo xagga technology-ga iyo isgaarsiinta ah imikana waxaan ahay gudoomiyaha banka dhexe waxyaabaha runtii banka dhexe waa runtii sida xeerka 54 2012 uu ku aasaasan yahay oo dhigayo waxa weeye bangiga uga mas'uulka ah qaranka siyaasadda lacagta ilaalinta stability-ga amba xasilinta suuqa maamulka bangiyada gaarka loo leeyahay mas'uuliyadda guud ee ah hababka bixinta ee xukuumadda iyo guud ahaan waxa la yiraahdo matalan oo kale sarifka amba exchange-ka foreign currency-ga si himilooyinka uu aasaasan yahay banka dhexe aan u xaqiijino waxa ay qorshaysan oo doonana insha Allah muddada gaaban iyo muddada dheer ba inaanu xaqiijino inaanu kor u qaadno shilinka Jamhuuriyadda Soomaaliland dalka wada gaarsiino xasilino suuqa gudaha oo sicirka haday tahay iyo haday tahay matalan oo kale dhaqaaluhuba oo xasilo waxyaabaha noo qorshaysan waxa ka mid ah inaanu dhisno kaabayaasha banka dhexe oo runtii muddo badan uu ahaa treasury laakiin aanu doonayno inuu noqdo bangiga hogaamin doona bangiyada geeska Afrika waxaanu dhisanaa laamihiisa oo sanadkan noo qorshaysan sida Laascaanood Ceerigaabo Saylac iyo Burco waxa noo qorshaysan inaanu dhisno shaqaalaha banka dhexe oo runtii halbowle u ah socodsiinta banka dhexe waxyaabaha noo qorshaysan waxa ka mid ah aan doonayno biidnillaahi tacaala inaanu xaqiijino muddada dhow xagga xeerarka ilaa imika waxa jira 4 xeer oo ka soo baxay golaha shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland xeerku ku aasaasan yahay banka dhexe xeerka bangiyada islaamiga ah xeerka maydhaanka lacagta 2019 iyo xeerka xawaaladaha 2019 waxa imika aanu gacanta ku haynaayo dhawaan insha Allah idin soo gaari doona xeerka hababka lacag bixinta ee qaranka national payment system oo runtii annaga gebagabanaga ah insha Allah aanu rajeynayno inuu idin soo gaaro oo ay ku jiri doonto maadaama imika digital currency aynu u guurnay cashless society aynu u guurnay waxaan la yiraahdaa mobile money regulation-kii lagu maamulayayna uu qayb ka yahay waxyaabaha kale aanu doonayno imika gacanta aanu ku hayno laakiin isagu xeer nidaamiye noqon doona national payment system tana qayb ka noqon doona clearing house-ka waxa la yiraahdo isku xidhka bangiyada gaarka loo leeyahay oo runtii sidii lacagta ay isku gudbin lahaayeen hababka maaliyadeed isku weydaarsan lahaayeen inuu banka dhexe oo ka shaqeeyo taana xeerkeeda insha Allah waa gabagabo waxyaabaha kale runtii aanu imika qorshaha nuugu jira ee aanu doonayno inaanu xaqiijino waxa kamid ah
international correspondence waa ogtihiinoo runtii ganacsatadeenna dibadda toos ulama xidhiidhi karaan swift koorkii ma lihiin marka waxaanu dadaal weyn ku bixinay oonu imikana gebageba noo maraya inaanu bangiyada caalamiga ah xidhiidh la samayno si yaroo sahlan ganacsatadeennu ay halkan lacag uga xawili karaan iyagoo bangiyada adduunka maraya oo aan delay badan iyo meelo badan oo luuqluuqo laga gudbiya ayna jirin waxyaabaha aanu imika gacanta ku hayno oo runtii aanu kobcinayno waxa ka mid ah inaanu kor u qaadno waxa la yidhaaho matalan bangiyada gaarka loo leeyahay runtii sidaan soo sheegay waa 4 bangi aanu maamulno iyo 4 microfinance iyo 20 xawaalad hay'adaha maaliyadeena anagu bangi ahaan laysanka siino iyo sariflayaal badan oo iyagu ilaa 2,000 gaaraya marka si aanu wax xaqiijino himilooyinka waxa weeye waxaanu imika wadnaa inaanu samayno isku soo dhaweyntii iyo isku xirkii